Waa maxay Valentine's Day maalinta jacaylka? Guud ahaan dunida waxay dadka lamaanayaasha ah maanta u dabaaldegayaan munaasabadda Valentine's Day oo ah maalin la xuso jacaylka. Haddaba, goorma ayay bilaabatay maalintan? Maalintani waxay bilaabatay xilligii boqortooyadii Roomaankii hore. Marka uu dhagahaaga ku soo dhaco ereyga Valentine, waxaad markiiba dareemaysaa in magacani uu asal ahaan ka soo jeedo Kiristaanka iyo caadooyinkii hore ee Roomaanka. Haddaba, aan isweydiino yuu ahaa Valentines. Qarnigii 13aad dhalashadii Nabi Ciise kadib ayaa waxaa jiray boqor la dhihi jiray Claudius oo ka talin jiray dalka Talyaaniga. Boqorkaas waxa uu amar ku siiyay dhalinyarada inaysan guursan karin, balse nasiib darro waxaa amarkii boqorka ka hor yimid oo xaqdarro u arkay ninkan geeridiisa ay u dabaaldegayaan maanta lamaanayaasha isjecel iyo guud ahaan dhalinyarta. Waa Valentine. Wuxuuna bilaabay inuu si qarsoodi ah u guursado dumar fara badan. Haddaba, markii ay soo shaacbaxday guurkii qarsoodiga ahaa ee Valentine, wuxuu boqorka amray in xabsiga la geeyo lana daldalo Valentine. Valentine waxaa ku dhacay jacayl xad dhaaf ah xilligii uu xabsiga ku jiray oo uu u qaaday gabar aad u qurux badnayd, taasoo ahayd gabar uu dhalay ninkii xabsiga ka talin jiray, taasoo soo booqatay waqtigii uu ku jiray xabsiga. Ugu dambeyntii, tiirka ayaa la geeyay Valentine. Daldalaadiisa kadib, waraaq jacayl xambaarsan oo uu ku saxiixnaa Valentine ayaa laga helay qolkii uu ku xirnaa xabsiga. Wixii maalintaas ka dambeeyay si loo xuso sanad guuradii ka soo wareegatay daldalaadii Valentine oo ku beegneyd 14 bisha Febraayo 271 dhimashadii Nabi Ciise kadib, ayaa la go'aansaday in la xuso maalintan oo kale oo la isdhaafsado ubaxyo, salaamo iyo hadiyado qaali ah, ilaa heer ay gaartay inay noqoto maalin lagu cabiro lamaanaha isjecel jacaylka isku qabaan inta uu la egyahay. Kaba sii daran haddii maalinkaas qof ayaga ka mid ah uu hilmaamo in loo micneeyo inuusan jacayl haynin. Haddii aad caqligaaga saliimka ah ku fikirto, waxaa kuu soo baxaya inaysan bannaanayn in loo dabaaldego maalintan. Haddaba, walaalaha muslimiinta ahow, isdhowra inta Allah idinku waajibayna ka soo baxa marka hore. Intaas ayaaba howl idinkugu filan, waana caqli xumo inaad isku mashquulisaan waxaan la idin dirsan, ajar iyo xasanaad midna idinkugu jirin, inay dambi, caro Rabbi iyo cadaab aakhiro idin horseedo mooyee.